aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dowladda Canada ayaa ugu deeqaysa Soomaaliya lacag gargaar oo wadarkeedu dhan yahay 18 milyan oo dollar oo lagu talagalay dadka abaaraha iyo roobabku ay saameeyeen ee danyarta ah. wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray Toronto. lacagtan la shaaciyay ee loogu deeqay Soomaaliya ayaa gaaraysa 18 milyan oo dollar waxaana ku dhawaaqay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Canada Axmed Xuseen oo matalayay wasaaradda arrimaha dibadda iyo dawladda Canada. barnaamijkani barnaamij aad muhiim u ahaa wuxuu ahaa barnaamij ku saabsan dawladda Canada oo ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysan 18 milyan oo dollar oo loogu talagalay 5 milyan oo dad Soomaaliyeed oo Soomaaliya ku dhex nool oo dhibaataysan oo u baahan cunto, u baahan daaweyn, u baahan biyo iyo ciyaalka in laga caawiyo xagga waxbarashada. lacagtan waa lacag aad muhiim u ah waxaana zaid ku sii ah 1 milyan oo Soomaali oo qaxooti ah oo wadanka banaankiisa ku nool oo Kenya iyo Ethiopia ku nool ayagana mucaawinaad baa u socoto. sanadkii la soo dhaafay dawladda Canada 29 milyan ee ku gargaartay dadka Soomaaliyeed si ay ula dagaalanto abaartii sanadkii la soo dhaafay. Axmed Xuseen waxa uu tilmaamay in muhiimaddu ay tahay inaanan la sugin inta ay abaar ku dhufanayso Soomaaliya, lacagtana ay si degdeg ah u gaari doonto Soomaalida si wax looga qabto dhibaatooyinka haysta. abaarta markay dhacdo ka bacdi oo dad badan ay dhintaan ka bacdi in loo gurmado Soomaaliya ma aha. haddana laga hadlayo dad badan oo xajjo gaajaysan oo dhibaataysan oo daawo la'aan iyo biyo la'aan hayso. dadkaas waxay u baahan yihiin in la caawiyo. inaan sugno ma aha abaar cusub inay dhacdo. 5 milyan oo qof maanta waxay u baahan tahay in laga caawiyo xagga caafimaadka iyo xagga cuntada iyo xagga biyaha. si degdeg bay u gaaraysaa because waxa loogu talagalay dadka hadda dhibaataysan in laga gargaaro. lacagtaasna waa lacag already loo qoondeeyay oo ku jirtay lacagaha